السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن كلا وناكسن تور وناكسن wax kastoo ay ku tahay wanaagsan ku soo dhaw channel Surbiya channel walaalayga sharafta la dhamaan meel kasta aad joogtaan subax wanaagsan aad leeyahay subax morning ayay ii tahay waxaan la qaybsanayaa routine morning-kayga marka aan soo kaco maxaan sameeyaa maxaa qabtaa bacda salaad bacda maxaa la dhahaa cibaadadaada kadib maxaan sameeyaa insha Allah waxaan ka bilaabaa inaan caruur yar aan haysta maasha Allah tabaaraka Allah i barakay intaan haysana Allah siiyo taybalka amiiska ayaan soo diyaarinayaa waxaan sameynayaa inaan u diyaariyo quraac yar oo simple ah aan ciyaalkayga mataqaanaa siiyo saan ay ma subaxda iigu bilaameysaa maasha Allah tabaaraka Allah quraacdooda ayaan soo diyaarinayaa anaga waxaan joognaa maxaa la dhahay waxaan ku jirnaa lockdown guryaha ayaan wax ku baranaynaa banaan ma u baxno iskuulna ma aadno marka maadaama aan iskuul aadin sida aan ilmaha u kala basriyo iyo qaabka fudud ee aan mataqaanaay maadaama dadkii oo dhan yar iyo weynba guriga la yiraahdo la fadhiyo online waxa lagu barto online waxa lagu dhigto subax waa kasoo horkaca ilmaha inta ii hurdaan alxamdulillah rabbil caalamiin markaan soo kaco maasha Allah tabaarakallah simple waxyaabaha iska sii qaban karo ayaan iska sii qabtaa macnaha seena rash iyo qaylo iyo mataqaana mashruuc ma jiro waxa waaye jawi degan maasha Allah kadib cerealkan asaaka siinaya subax walba ma aragtay quraac yar oo kala duwan oo fudud ayaan mataqaana u diyaariyaa saaka subaxdan ay ii tahay ayaan waxaan sameynayaa waxaan siinayaa cerealkan u shubaya insha Allah cerealkoodan yariiska eban dhagdhag ku siinaya waayo quraacdu waa muhiim ilmo waxa jira subaxii aan waxba cunin laakiin wixii markaas uu jecel yahay kaleeto maadaama subax hore tahay ayaa fiican cunuga inaad siisid oo mataqaanaa dhag ay ku siisid in haddii uu cunugii mataqaanaa wax cunan oo mataqaanaa allergy haysanin wax ma baran karo marka wax yar oo fudud oo mataqaanaa markaas aan waqti badan ka qaadanaynin maxaa la dhahaa ilmihiina qancinaya ayaa la siiyaa aniga for example cerealkan yaraan siinaya caanaha waa usoo kululay digsiyan dabka saartay caano yaraan kusoo kululaystay maasha Allah kadibna caanahana ugu shushuwaya kadibna waan siinaya maasha Allah tabaarakallah waa kaasa saasa ugu waxaan baaqulu ku jira arkaysan weetabks waaye iyo maxaa la dhahay cornflakes oo kala nooca kadib waa u geeyay hadda waxaan sameynaa waxaan u diyaarinayaa cabitaan yariis ayaan koobkan ugu shushuwaya haddii Ilaahay yiraahdo inaa mataqaanaa subaxii ilmaha ama naftaadaba aad siisid oranjiga ama sharaabka oranjiga ka samaysan aad ay u fiican yahay waa vitamin C ilmaha u fiican yahay kala qof walba ilmihiisa waxba u siistaa ani badanaa waxaan sameeyaa subaxii waxaan siiyaa maxaa la dhahay oranjadana mataqaanaa inta badan aan subaxii siiyaa marmar way jirtaa aan mataqaanaa caanihi waxaas kala siiyo laakiin saako kaleeto waa subaxii oranjiga lagu cadaayo maasha Allah cuntada markaas aan bixinayo oo ilmaha siinayo ku xirantahay wixii markaas aan ku siinayo oo enjoy gareynayaan cuntada cunayaan marka intay cuntada ii cunayaan anigana waxaan rabaa insha Allah inaan mataqaana waxyaabo yar oo kale iska qabto hallwayga guriga u dhaxeeya ayaan mataqaana soo nadiifsada u jeedin nadiif maasha Allah wixii yar iyo yaal xasan ka qaaqaaday meeshana waxaa la rabaa aan wax yar mataqaana kala nidaamiyay maasha Allah u jeedin waan soo nadiifiyay maasha Allah soo nidaamiyay jelkan hand jelki waaye hand jelki oo bakteeriyada gacmaha ay ku shubanayaan waaye haddii albaabka furaan oo kaleeto ama qof soo garaaco oo kale halkaan uu ii saaran yahay mataqaana waa kaasa maasha Allah ilmihi intay quraacda mataqaana ay cunayeen maadaama maasha Allah ayagu ay mataqaana anaf ay tahay oo iyaga ay siinayaan ana waxaan jeclaa inaan sii fadhiisan ee waxyaabo kale aan sii qabto qolkan mugdiga aan soo galay waa qolkii ay wax ku baran lahaayeen oo nusii diyaarinaya insha Allah intay quraacanayaan ku wax baranaya ayaa inta soo gali doona haddii Ilaahay yiraahdo meel iskaan yar miskiinka ah ay soo fadhiisanayaan insha Allah miskaana soo fadhiisanayaan waan nadiifinaya wax yaraan u tirtiraa insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo meesha baynsalkii colorski qalimaanti kan qalaa ku jira maasha Allah guriga waxa lagu bartaa la yiraahdo maxaa la sameeynaya marka waa inaa maxaa la dhahay dictionary-ga waaye wixii yani ku adkaada ay ka sameystaan kan waa islaamic insha Allah waa book islaamiga oo mataqaana waxyaabo islaamiga ka baranaya laakiin waa galabta iyo kan marka kumbiyuutaradooda iyo waxoodan u sii nadiifinaa meesha u sii diyaarinaya kadibna way soo fadhiisanayaan haddii Ilaahay yiraahdo waa tana ayaan yaraa soo fadhiisanayso kumbiyuutarkeeda ayay mataqaana daaranaysaa xilliga casharkeeda ayaa ila gaaray waa kaasa qof walba laptopkiisa iyo wixiisa markaas wax ku baranayo oo mataqaana la soo fadhiisanayo daaranaya
ما شاء الله تبارك الله ومون الروتين كيغا بعد رقيب سناي خياري إن شاء الله سيمبل واي دم تشيرو الماء دسوي حدك سوور كعدد أو حلو السيني ذا بس واحد ما يكوتو سايان ما دام أنقريا حقولي هنا أو ضدكم تقانا وحالها بايد إنه قدام ذا نشوفه أو سكول كذا كحرين ولا ير أونلاين وحلو دكتو صبحي عادي كسر هركع الماء حيابها قد دياري وحي مركا وباهين دياري وحب كستو ربان وهجاجي كدب ترتيب هذا noloshaada nolol waxay kuugu bilaameysaa easiya maasha allah waa kaas halkaas iska fadhiyaan meeshaan wax ku baranayaan riyaan yar waa reed cashirkeedii waa kana ramla soo ordeyso waxay rabtaa ayadana inay soo fadhiisato maasha allah oo cashirkeeda ayna qolkiga gashay hadda waa daba socdaa waa la isdaba barsanayaa marka qayb waxaa jirta ilmihii wax dhiganaya iyo qayb aan wax dhiganayna akhyaaray marka aniga saana u kala basriyaa kuwa wax dhiganaya soo fadhiistiyaa kuwii kalena koraa u diray oo tv-ga ayay mataqaanaaye waa laba meelood ay kala yihiin iskuma dhawa marka ku yaraa idima tusin insha allah mar kale aan idin tusaaya ayagana meelay fadhiisteen ani maxaa ii haray marka aniga waxaa ii haray ani qudheed iskuulaan bilaabayo mar dhow saacadda ka dambeeya iyaga marka intii aan saacadda ka dambeeya weelkii ay mataqaanaaye igu cuneen siiriyaalka iyo waxyaaba yaryaraa ayaan marka hore iska nadiifinaya haddii ilaaha yiraahdo dhag kaali iskaarg meeshaanaan tirtiranaya weelkooda yarka hayaan mataqaanaa iyaga wax ku siiya baaqulyadii waaye baan soo dhaqanaya si mataqaanaa hawsha ay iigu fududaato hadduu weel halkaan ii yaala ani xitaa mataqaanaaye hawsha iima fududaanayso marka sidaas daraadeed waxaan sameynaya intaan yaraan iska raacinaya inta ilmihii ii fadhiyaan waa soo kala basriyay qof walba seefiya qof walba waxbarashadiisa u fadhiistay maasha allah buuq ma jiro dhib ma jiro anigana hadda hooyaan ahay waxaan kuri intaana buufsiinaya dhag aan ka siinaa insha allah halaha markaan boofsiiyo oo na soo nadiifiyana ya anigana waxaan u fadhiisan doonaa maxaa la dhahaye ani qudheed waxaan leeyahay lesson ama cashar baan leeyahay sidoo kale ayaa online kees ka galaya bardhow marka intaana gelin ayaa anigana meeshaan iska sii nadiifiya maasha allah stress laan free waa iska fadhiisanaysaa ilaa inta qabada laga gaarayo oo casharada lagu jiro waa kaasta madda waxaan idila qaybsanayo morning routinkeyga simbalka oo wax badan ahayn oo maadaama caruur haysatid oo guriga wax ku baranaysa hooyana aad tahay see u kala basrasaa qaybka wax kuwa wax baranayo kuwa wax baranaynin see u kala basraa sidee waxaa fiican inaad subaxii aroorta hore aad kasoo horkacdid hawshaadii yaro iska qabatid kadib saanay hawshii iigu soo dhamaatay maasha allah tabaarakallah simple kadib waxaa waaye aniga xaajiga waxaan soo samaysanay qaxwo qaraar ani Soomaaliya ahay waxaan cabaa qaxwaha cabaa asagana kafee u jeceliya aan qaxwo la-aan subax ma joogi karo khiyaarayna qaxwayga iska soo samaystay asagana kafee yaa meesha waa la kala dooqaal yahay uma baahna quraac badan inaan cuno waxaan yarkaa waa timir iyo baanka gariisa halaha waxaa la rabaa kaliya qac in lagu siiyo moogtahay maadaama marka khayr intaas aan la qaybsanayo rootinka simbalka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh please haddii markii ku goorsi aan soo boqotay naga ilaa inta subscribe ka comment ka share ka